sideed qodob oo aad ku ogaan karto qofka daacadda kuu jecel. Qodobka koowaad, qofka mar walba ku soo xidhiidhiya xataa adigoo aan xidhiidhin, kula soo hadla ee mar walba jecel codkaaga inuu maqlo, ogow qofkaas waa qofku jecel amaba dareen kuu haya adiga. Qodobka labaad, qofka mar walba su'aalaha ku weydiiya, xaaladaada kaa waraysta, jecel wax badan inuu kaa ogaado, ogow qofkaas waa qofku jecel adiga. Qodobka saddexaad, qofka mar walba oo aad fariin u dirto amaba aad garaacdo wacdo si degdeg ah kuugu jawaaba, xataa isagoo mashquulsan, hawlihiisa kaa hormariya, ogow qofkaas waa qofku jecel adiga amaba ku danaynaya. Qodobka afraad, qofka sirihiisa khaaska ah kula wadaaga, weliba isagoo qalbiga kaala hadlaya, jecelna inuu ku ogeysiiyo xaalad walba oo soo food saarta isaga, ogow qofkaas waa qofku jecel adiga. Qodobka shanaad, qofka mar walba daneeya inuu ku arko, kaasoo aan tan khaasa wadan, rabana inuu ku daawado adiga, ogow qofkaas waa qofku jecel adiga. Qodobka lixaad, qofka mar walba oo aad meel aadayso sida safar, xaflad amaba wixii la mid ah, jecel inuu ogaado oo kaa warhayo, ogow qofkaas waa qofku jecel adiga. Qodobka toddobaad, qofka kaa masayra mar walba oo uu kugu arko qof kale, haddana kuu sheega dareenkiisa ee ku dhaha waan ku jeclahay, fadlan ilaali qalbigayga, ogow qofkaas waa qofku jecel adiga. Qodobka sideedaad, qofka aan kuu maqlin dadka, si walba oo ay wax kaaga sheegaan, iska indha tira si uu farxadiina u raadiyo, ogow qofkaas waa qofku jecel adiga.